taariikhda noo gali magacaygu waa Cabdifataax Cabdirashiid Abuukar waxaana ka tirsanahay idaacadda isboortiga dalka Gol FM taariikhda noo gali xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ayaa galabta la ciyaari doona xulka Tanzania kama dameysta finaalka tartanka Sekaaf Under 17 tartankan waxaa sanadkan marti gelinaya wadanka Burundi ka oo ay ka qayb galayeen ilaa 8 xul ay kala ahaayeen Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan, Zanzibar, Soomaaliya, Ethiopia iyo Burundi oo ah martigeliyaasha xulkeena 8 xul ayaa ka qayb galaya tartanka Sekaaf Under 17 waxa iskugu soo haray ilaa 4 xul gruupka A oo ay ka soo baxeen xulkeena Soomaaliya iyo Kenya kaalin koowaad waxa ku soo baxay xulkeena iyagoo keenay 7 dhibcood waxay ka soo adkaadeen xulka kale ah Ethiopia iyo Kenya sidoo kale barbadhac waxay la soo galeen xulka martigelinaya sanadkan ee Burundi dhanka kale group B waxa ka soo baxay Tanzania iyo Uganda Tanzania kaalinta koowaad ay ku soo baxday iyadoo ay isku dhibcay yihiin xulka Uganda oo kaalin labaad ku soo baxday laakiin farqiga goolasha ay xulka Tanzania kaalinta koowaad ugu soo baxday groupka B isku soo wada duubo labada group waxa ka soo kala baxay xulalka kala ah Kenya iyo Soomaaliya group A ay ka soo baxeen group B waxa ka soo baxay Uganda iyo Tanzania waxa isku dhacay Soomaaliya iyo xulka Uganda hali ever Soomaaliya ayaa ku badisay waxa goolkaasi noo dhaliyay Farxaan Duqow halka Tanzania ay isku dhaceen xulka lagu magacaabo Kenya Tanzania ayaana soo adkaatay taa ayaa keentay in labada xul Tanzania iyo Soomaaliya ay final ay ku tartamaan maanta xulkeena waxay dhaliyeen tartankan 3 gool waxaana 3 gool inoo dhaliyay laba kamid ah Farxaan Duqow ayaa inoo dhaliyay labadaas gool wuxuu ka kala dhaliyay xulka kala ah Uganda iyo Kenya goolka kale waxa inoo dhaliyay Ayub ka oo ka dhaliyay xulka Ethiopia xulkeena markii ay gaareen kama dameysta tartanka Sekaaf ee wareega ugu dambeeya finaalka waxaa loo diray hambalyo kala duwan waxaana u dirtay madaxda dawladda ha ugu horeeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo bartiisa Twitterka ku soo qoray hambalyo daayirta 17 sano jirada kuwa soo gaaray finaalka tartanka Sekaaf Under 17 waa idinku faanaa waxaan rajeynayaa in aad koobka inoo keentaan gurigeena sidaas waxa bartiisa Twitterka ku soo qoray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale barta Twitterka waxa ugu soo hambaliyay wiilasheena maayirka hore magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed isagoo ku soo qoray bartiisa hambalyo xulkeena Soomaaliya 17 sano jirada oo gaaray finaalka tartanka bariga bartamaha Afrika waa guul weyn oo dhamaanteena inoo soo wada hoyatay ciida iyo calankeena baad ciise iyo sharaf u soo hoydeen Allah idinku guuleysiyo tartanka aad finaalka joogtaan ee Sekaaf Under 17 sidoo kale waxa xulkeena hambalyo u diray Marwo Khadiijo ah wasiirada isboortiska dhalinyarada iyadoo hawada u marsiisay bogaadin ku aadan inay dhiirigelinayso markay yimaadaan wadankooda sidoo kale abaalmarino qaali ay sii doonto sidoo kale waxa hambalyo u diray gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed mudane Cabdiqani Saciid Carab isagoo ku sugan wadanka Uganda wuxuu ugu hambaliyay inay gaaraan finaalka tartankaani sidoo kale gudoomiyaha xiriirka Afrika Masar Axmed ayaa sheegay inuu kulanka galabta imaan doono garoonka isagoo fiirsan doono xulkeena ciyaarta galabta waxa la daawo doona abaaro markay saacadu ku beegan tahay 9 saac galabnimo waxayna ciyaarta ka dhici doontaa garoonka lagu magacaabo Nkuzi Stadium ee ku yaalo wadanka Burundi haddaba daawade fikirkaada inoogu reeb dhanka hoose muuqaalkan aad u jeedaana sii share gareeya si uu gaaro asxaabta gale taariikhda noo gali
deeqda noo